إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت الله أو نحريسته وحا ودنك جرمانka ku geeriyooday saaxiibkii Maxamed Muuse Jaamac meydkiisina loo qaaday magaalada Hargeysa halkaasoo lagu aasay xabaalaha Baqiiq ee ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay aaskiisii bulsho aad u fara badan oo ah bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa asxaabtii ehelkii iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka baxay hadalladoodina waxa ka mid ah sida tan وأيام بأيام دوني آخر سبان ننا آنو لها إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت geeridu waa xaq waana ay kala xanuun badan tahay kulli bas ay u kala dambayso maanta waxa baxay walaalkeen Maxamed Muuse Jaamac oo aad u qiimo badan aad noogu qaali ahaa dabeecadiisa iyo dadnimadiisa bini'aadanka oo dhami ay ka marxaati fureen ilaaha caadilka waxaan ka baryayaa saayifka looga jeclaa inuu aakhirana subxaanahu wa tacaala looga jeclaado malaa'igtu soo dhaweyso maxamed wuxuu ahaa nin raxim jecel waa nin cilaaqaad fiican nin ehelkiisa xiriiriya nin asxaabtiisa u roon nin naftiisa u roon nin aanay salaadu ka tagin oo mar kasta idinkoo taagan haddii salaada la idaamo markaba weysada u dhaqaaqaya oo cibaadada ku wanaagsan ilaah macbuudka waxaan ku baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu Maxamed Muuse Jaamac walaalkayga qiimaha badnaa u naxariiso anagana dhammaantii samiriya imaan naga siiyo ifkaa lagu jeclaa ilaah waxaan ka rajaynayaa in aakhira lagu jeclaado kullu nafsun daa'iqatul mawt thumma ilaynaa turjacuun inaguna waa inaynu ku sabirno oo qofka soo qiimo badan oo shalay kula joogay ood garanaysi wanaagiisa aynu ku cibro qaadanno ilaahay waxaan uga baryaa walaalka in ducada uu aqbalo anigoo Cali Muuse Jaamac waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga dirayaa dhammaan qoyskii reer Xaaji Muuse Jaamac oo ka baxay saaxiibkay walaalkay oo qaali ah nagu ahaa in ilaahay samiri iimaan ka siiyo isagana ilaahay u naxariisto jannooyinkiisa sarena ku casuumo qoyska iyo annagaba iyo asxaab badan oo Maxamed asxaabtiisii ahaaba samiri iimaan ka siiyo noolaba waa dhintee xaqiiq wuxuu ahaa tiir adag oo asxaabta iyo qoyska ka baxay gaar ahaan waxaan ka tacsiyeynayaa walaalkiis ka weynaa oo isagana saaxiib ahayn daahir xaaji muuse iyo hooyadii oo nool khadiijo cumar ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo samiri iimaanaha ka siiyo aniga geerida Maxamed si gaaray iigu mudan tahay waxaan nahay saaxiibo walaalo noqday muddo 40 sanadooda ayaan runtii saaxiibayo walaalba ahayn waanan marna kala xiriir furan laakiin kullu nafsun daa'iqatul mawt إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي حق لغو عابدو أينا أبوري إساقا أيا لو نغنيا ومالين مرغا بدن waxaan maanta tagay walaalkeen Maxamed Xaaji Muuse waxay la gudboon saddex inaan u duceeyo Ilaah weyn aan u baryo inuu jannooyinkiisa u sarreeyay oo aamiin tiraadaan iyo inaan marago u furo walaalkeen oo idinku mariyo tii in adoon fiican ah oo afkiisa laga nabad galo saalixa oo salaada ooga oo sujuud badan oo sooma oo qof fiican ummadana raali ka tahay marna waxaan tacsiyadeynayaa hooyadii walaaladii asxaabtiisii dhammaanteen reerkiisii iyo ubadkiisii dhammaan dadkii asxaabta ku ahay ku xidhnaa ee qaaradaha adduunka الرحمن الرحيم magacaygu waa Axmed Cumar Jaamac waxaan halkan tacsi iyo tiiraanyada u dirayaa dhammaan asxaabtii eheliyadii iyo qaraabadii iyo carruurtii iyo reerkii uu ka tegey Maxamed Muuse Jaamac oo ku geeriyooday waddanka Jarmalka waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariis janno ka waraabiyo cadaabul qabrigana u fududeeyo
maxamed wuxuu ahaa nin aad u ballaaran oo ma garanaysaa asxaabtiisu iska badan tahay oo dadku iskuuna mid yahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo innagana inooga daba naxariisto samir iyo iimaanna uu inaga siiyo walaal aad baan ugu ducaynaynaa wixii dadka ehelka iyo qaraabadana waxaan ka codsanaynaa inay u soo duceeyaan inuu ilaahay su-aalaha qabriga u fududeeyo. cabdiraxmaan shaqalle tv-ga caalamiga ah ee home cable tv london.